subax wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, khiyaarta qaraabo iyo axsaabba kusoo dhawaada channelkayga Kawawa Food Channel. maanta waxaan sameynaynaa adduunyo alaab-alaabaan ku dhahay. halkan waxaa diyaar iigu ah 1200 mililiter oo biyo qabow ah. waa ujeediin digsigan ayaan ku shubanaynaa. wuxuu u dhigmaa 1 litir iyo wax yar biyahaas halkaas aan ku shubtay. maanta sheekadeena waa bariga dhexe. maanta waxaan idin geynayaa baddi Liido, si kale kuma taqaanideen yaa. maanta waxa waaye waa baddi Liido idin dhah. halkan waxaan ku ridanaynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo 3 xabo oon jaray lima dhanaan aan sidaas aan u jaray ayaan ku ridayaa, iyo mint, fresh mint ah ayaan ku ridayaa. waxaan sugaynaa intay isaga soo karkarto. wax yar oo cusbana waan ku dareennaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. cusbadana waxaan ku qiyaasanaynaa qaadada kafeega haafkeeda. waa xariiqin, waa 1 xariiqin 4 teaspoon mugiisaan ku darsanaynaa. ha inoo karto marka. maanta sheekadeena waxaa waayaan ku dhahay liidaan rabaa inaan idin geeyo akhyaaray. sababta aan saas u leeyahayna waxay tahay in yar ii kaadiya geedkan hawadaan iska shideennaa. waa ujeediinaan u maleynaaya insha allah. wax yar hawadana aan naga shido. sababta aan idiin dhahay baddi Liido ayaan idiin geynayaa maanta waxaa waaye, maanta waxaan rabaa in aan noo kariyo qaaya. abdeenishka waa qaaya yaa. soomaaliya waxaan dhihi jirnay baby argosato yaa. ilaah hadduu raalli ka noqdo. kulley waxaan u maleynayaa ingiriiska inay dhahaan shrimpage. so magac adaga. biyaha markuu iisoo karkaro waxaan ku ridayaa qaayaha. 10 minutes markuu kusoo karkaro waan ka soo saarayaa. bardaawadan ayaa halkan diyaar noogu ah, oo waxaan rabaa in aan markaan aan ka jarjaro baalasha, qolofta kore, indhaha aan ka sameeyo, oo jiirka oo keliya aan isku soo reebo ayaan rabaa in aan dallaco. waxaana ku dallacayaa gaalik tuun ii shiidan, 1 xabo basal ah, 2 xabo oo barbarooniga dheerdheer ah, basilika fresh ah. kanna hadhow basilikadan decoration ayaan rabaa korka inaan oga saaro. akhyaaray meentada hadda aan ku daray waxaad ka heli kartaa Lidl, Tesco, meel kastay taalla iyadoo fresh ah. maxaa kaloo noo soo haray barbarooniga dheerdheer aan ku sameeyeyna waa mixed point paper. Lidl ayaad ka helaysaa, kalar kastuu isugu jiraa asagana. kulley aniga idimaan tusin sababtoo ama rabo waqtigiina qaaliga inaan dhumiyo anoo wax jarjaraayo iyo ayadoo diyaar ah. sheekadayda waa tic-tac. marka waxaan sugnaabaa waa inta uu biyahan inooga soo karkaraayo. kadib waxaan idin tusayaa habka aan qaayaha aan u nadiifinaayo, kadib habka aan u shiili doono. marka 2 qayb ayaan rabaa inaan ka dhigo insha allah. markuu diyaar noqon rabo qaybna gabadheydaan gooni ugu gurayaa, marka iyada waxay waqtaa in uu xoogaa weyd ku darsamo iyo più saporite. creamkaas caanaha ayaan ku darayaa, single creamka yaa ayaan rabaa in aan ku daro. uu faadkiisana yahay ilaah hadduu raalli ka noqdo 19.1 gram oo mama mia. iyada ayaan ugu darayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. bad annaga ma rabno. akhayaarta baastada aan karin doonana nooceedana waa baastada linguina. Tesco ayaan ka soo gaday. muskiiladaas linguinaha waxaa ku samayn kartaa
500 waa half waa nus kiilo kale oo ah qaayaha perfect ku soo baxaya marka waa ila socotiina maleenaya kan ayaan markuu noo soo karo ayaan ku shubeynaa waan isku soo laabaneynaa khiyaarta waan isku soo noqonay biyihii way inoo kareen sida aad u jeediin hadda marka waxaan rabaa carafti liintii iyo cusbadii iyo kulli gudaha ayay ka gashay marka waxaan rabaa in aan ku shubo aragoostadeennii yaryareed waa nus kiilo saan idiin sheegay cabirkeedana dab badanna uma baahna markay in yar haf soo dhahdo akhyaarta waan ka dejinaynaa kuleelkan qiiqa aan ka leexiyo meesha in yar markay haf noo soo dhahdo waan ka dejinaynaa markay waad ogtihiin dab badan ma xamili karto kadib waan miirahayaa qolofta dhan ayaan ka jarjarayaa markaan nadiifiyo waan dallaxeynaa waana isla joognaa maanta waxaan rabaa inaan idin geeyasaan hore idinkugu sheegay xeebti liido baar liido yaa waxaan cunaynaa fruta di mare qofkii yaqaana heeskaas yaqaano talyaani waayo wuxuu ahaa sapore di mare sapore di sale che hai sulla pelle che hai sulle labbra vicino a me marka maanta sapore di mare waayo cuntada yaa waan isku soo laabanaynaa in yar kadibna axsaabey waa kaasaa mar alla markuu saas usoo gadgadoomo uma baahna dab badan haddii kale sabooraha dhan ayaa ka baxaaya marka hadda waa miireynaa waana isku soo laabanaynaa dabkaan dansanayaa waan isku soo laabanaynaa insha allah marka waa inaan fiiqno hal u fiiqno qashinka markaad ka saartid saas wuu ekaanaya asaga dhanba cadkaas yaraa meesha ku jiro laakiin aad u macaan oh my god marka hore dabada ayaa laga jaraayaa waad ila socotiin aan umaleynayaa dabada ayaan dhanka siineynaa haddana madaxa ayaa dhanka siinaysaa waa ujeedaa markaas ayaan qolfaha ka rideynaa waxaan waa qolfo cididaada unbaad dhan kaga siinaysaa idaa hadduu raalli ka noqdo look it's easy waana wax aad u macaan oh my god markii la dallaco hal dhinac markuu kaaga fuqi waayo dhinaca kale ayaad isku dayaysaa inaad ka soo saarto waxaan waa maqaar yar oo xoogaa adag waa ujeedaa no ujeedaa nadiif waaija waa kaas ma laha laf dhan sapore di mare sapore di sale che hai sulla pelle che hai sulle labbra vicino a me vicino a me ilmahayga say u jecel yihiin anigaba sidoo kale weliba saan markaad liimo dhanaan yar ku miiratid sidiisaa ku cuni kartaa oh my god dhulkeenna barwaaqadiisa wax uu ka jooga male geedkan halkaana kiiladiyaa 12 pound ah aansi 12 baan xataa kulli ana qaali uma arko
marba haddaa cunto macaan badan aa cunaysid oo healthina healthy. dabadaa ka jaraysaa qoorta daarta gacantaa kaga jari kartaa qoorta is easy. look maqaarkaana waa ka fiiqeynaa. laba nooc ayaan rabaa inaan u sameeyo, waa idiin sheegay. noocna caanaha faadka ah oo kareemka ah aan ku sameynayaa, noocna sida caadiga ah aan u sameynayaa oon faad ma lahan. markaasiito qofka buuran xataa wuu cuni karaa, qofka cayilan, sababtoo ah waa healthy. laakiin qofkii raba inuu is cayiliyo caanahaas kareemka ayuu ku darsan karaa. way ila socotiin oo maleynaa. markaas saartidna 10 minutes 15 minutes horuu ka karaayaa, markee inuu dabka ku bislaado lama rabo uu jajabo. waxaa la rabaa markii dab kala u dhiman, markuu in yar haf soo dhahaba uu biyaha loo mar isu gadoomaa, waa miiraysaa. waxaan rajaynayaa inaad jeclaan doontaan. waa cunto caafimaad leh. weliba baasta balbalaarka markii lagu kariyo oo farahaagaa goosanaysaa. faraha mar haddaa beratidna nabadaynay sidaan ku dhahay. waa inaad faraha si fiican ugu kontaruushid haddii qolof adag ay ku hartay, sababtoo ilmo yar haddaa qabtid dhuunta ayay ka geli kartaa. alxaq الحق الله أكبر الله أكبر. وأنا صفي عن أول نظيفنا وهدنا مرح لبعض أنكو كنترول قعنيق هدي وقو هرين لفقة حسابتو أركتنا عملينا عقل ونظيفنا أيو وحاجة أشي إنا إلسي جوكتين وفيرستين مساين آن اسكسو ونقلنا سي عن وقتي نقالي عن أبو من سو اسكسو نقلنا خيارتا مرة بقى إن عادي وعاجستين مركان سو وذا نظيفيو حتى واحد انتسي أبقى اللو نظيفين آيو
marka waan isku soo laabanaynaa markaan dallacaayo. Hadda waan sii nadiifinayaa insha Allah. Isku soo noqod wanaagsan. Qayaarta aniga ayaa idinku soo laabtay. Hadda waxaan diyaar dallacnaa raayihii amba argoosatadii yaryareed. Halkaan dabka ayaan shitay, number 6 ayaan ka dhigtay. Waxaan ku shubeynaa qaadada bariiska lagu cuno ayay u dhigantaa midaan. Labadeeda oo extra virgin olive oil ah. Waa kow iyo labo, ma baahnid ka badan. Inaan maleynayaa waan nadiifiyey, qashinkii dhan waan ka saaray. Waa kaasaa sidaas ayuu ku soo baxay. halkaana waxaa diyaar noogu ah carfiskeenii dhammaa ee aan rabnay in aan ku shiilanno. halkaana waxaa diyaar noogu ah tuun shiidan keligeed ah, aan wax kale aanan ku darin. waad ogtiin horena waa idinkugu sheegay tuunta cuntada ha loogu roonaado. marka saas ay tahay 2 xabaan ku darsanaynaa no. dhadhan macaan ayaa la rabaa. 2 qaadoo tuun ku darsanay. ilaa dukuroon yahay markuu noo soo shiilmo ayaa wixii kaloo carfis ahaa aan ku dareynaa. balbalaarka markii lagu cunaayo aan ka jeclahay ma ku jecli ani makarooniga. okay, wuu noo soo shiilmay. waxaan ku dareeyaa xabad basal oo dhan oon yaryareeyey. mir marka isu soo carabto haddana waxaan ku darayaa barbaroonigii oo 2 nooc ahaa. barbarooniga dheerdheerka ah waaye. sababtoo ah qaayaha amba argoosadaas yaryar way noo karsan tahay, uma baahna dab badan. marka waa inaan kuwaan shiilaa marka hore. basada doobba ayaan ku garayaa intaan ha isku shiilmato. akhyaarta maanta waxa waaye alla lanwina. waxaan rajaynayaa inaad jeclaan doontaan akhyaarta axsaab iyo qaraabo. haddaad ku cusub tahay channelka Kawawa Food Channel, please like, comment, share and subscribe. haddii aad horey noola joogtay ood ahayd groupkii Kawawa Nile Artna, like, commentiga and share please. cuntadan hadda aan diyaarinayo 2 nooc ayaan ka dhigayaa. qofka caatadana waa cuni karaa oo fat ayaan oga dhigayaa. qayb kale ayaan ka gurayaa, hal qayb aan ka gurayaa. dadka cayilan oo iscaateenayana way cuni karaan. waa basilic fresh ah, wax yaraan ku darayaa iyadana. akhyaarta wax yar ha isku dhex dhacdo kadib ayaan ku darayaa qaayaha amba argoosateedanii yaryareed. in yar ha isku dhex dhacdo.
hadda waxaan ku darayaa argoosadeen yaryareed. Waxaan kaloo ku darayaa bayal aan ku qiyaasay qaadada kafeega muggeeda waa hal xariiqin 2 teaspoon. waa qaadada kafeega muggeeda waa ila socotiin aan maleynayaa. waan jeclahay cuntada markay saas kalarada kala nooca ay leedahay. waa cunto samar cuntada samarka waa I like it. markasta cunto markaad diyaarinaysid horta karinteeda keliya maaha, xataa habka aad u diyaarinaysid qurxinta waxay ka mid tahay decoration camal. kalaradaas oo kale markaad ay cuntada leedahay laakiin adoo guri decoration u yeeshid waayo waad ku soo jiidanay appetite-kaaba kuu furmaayaba wallaahi. ayaan isku daboolayaa akhyaarta. qaybtii kale ayaan ka saarayaa. hortaa noo shiilmo wax yar. wax yar ayaan u yeelayaa oo baroota camal ah. waa diyaar. cusbadiisa xataa waa dhag aan ku lahay dhag. in yar kadib wax yar ayaan ka gurayaa. oon gabadhayda raba gooni iyada inaan ugu sameeyo kaos. waxay rabtaa weyd yar in uu ku darsoomo. jaawa hadda anoo 2 nooc oo cunto sameeyey ayay la mid tahay. qaybna dadka raba cajilka aan rabinaan cunaayo iyo qayb yaroon ka saaraayo oon gabadhayda aan ugu talagalay. waana idiin sheegay waxaan ugu darayaa creamkaas caanaha faadka ah ayaan rabaa inaan ugu daro. deenishka annaga waxaan dhahnaa pisk fluda. dii ayaa daaniska soo wax yar ayaan ooga bixinayaa iyada sababtoo ah waxay rabtaa baastadeeda in ay ku cunto. dabkaan u shidayaa iyada. hadda keeda ayaan rabaa inaan saaro. okay. kan dabka ayaan isaga gaabinaa. number 1 ayaan ka dhigayaa. okay. soo kamerada ayaan inta noogu soo dhaweynayaa si labada weelba aan u arki karno.
akhyaarta kan waa noo diyaar waan daminayaa markee inuu ka dhammaado baroodadaas ma rabi sababtoo baastada ayaan ku qaseenaa hadhowtii wax yar baroodi in laga helo waaye haddii kala dry hadduu noqdo baastadiina dry kaa noqonaysaa qaleel markaa baroodo yar aad ku dhaaftid biyo saporita ayuu noqonayaa dhadhan macaan alaabtiyo khatar ah hadda waxaan ku darayaa wax yaroo biska fuluudo aad ii sheegay gabadhayda miisaan bay rabtaa so labada noocba waa u samaysan kartaa hadduu ilmahaaga qof raba inuu miisaan ku kordhana habkan ayaad ugu samaynaysaa qofkaan u baahneenna gruubka aan u baahneenna saan ayay ku cunayaan baastadooda ayaa lagu qasayaa oo keliya allora hadda waxaan ka dejinayaa markuu in yar cream isku noqdo jaa waa ka dejinaa markaas waa ila socotiin oon maleynayaa halkan waxaan ku aamusiinayaa waan damiyey wax yar oo fresh basilica amba basil qofba siduu u yaqaano okay waa kaasaa akhyaarta sidaas ayuu ku soo baxay waa ujeediin come bello come beautiful wallahi kalaradan waa jeclahay markay cuntada kalar badan leedahay I like so hadda waan dabooleynaa baastada hadhowta ku qaseynaa gadaalaan iska geenaynaa haddaan rabno kan ayaan sugaynaa marka inuu in yar cream noqdo asna ila socotiin aan u maleynaa akhyaarta I hope inaad ka heli doontiin ood maalin unna aad baroobeyn doontiin carruurtiina aad u samayn doontiin ood jeclaanaysiin haddaad rabtid markaad adsaan oo kale baastadaada karsatid aad guratid barmasaan yaraad korka dhex kaga siinaysaa iyo xoogaa yaroo basilic fresh ah amba basil fresh ah wow aad ayay u macaan tahay markaas laakiin hadhow markaan diyaariyo ayaad ila arki doontiin resultiga amba jawaabta meeshaas ka soo baxdo markuu cream noqdo waa bas waa la dabinayaa iyadana wow waan damiyey that's it akhyaarta kana sidaas ayuu ku soo baxay aan ka fogeeyo qiiqa kaamirada adugaa ismaba arkaysiinba waxaan samaynayo waa kaasaa creamkaasaa la rabaa inuu ku soo baxo log baasadii lagu shubtay waxaan ku dhahay haddii dhegta lagaa jaraayo xataa ma dareemaysid okay hadhowtaan isku soo noqonaynaa akhyaarta waa mahadsantihiin la socodka aad ila socoteen baastadiiya markaan diyaarinayna iyo saladkii lagu cuni lahaa ayaana inoo dhiman waana isku soo laabanaynaa insha allah akhyaarta hadda waxaan karsanaynaa baastadeennii ayaan rabnaa inaan ku shubanno ilaa buraali ka noqdo waa baasta balbalaar amba liidweyna baadba qofka siduu u yaqaano waa ila socotiin aan u maleynayaa cusbo hal
qaado cusbo ah. waxaan rabaa inaan ka dejiyo sokorta iyadoo ah ilaah hadduu raalli ka noqdo. waa nus kiilo wax yar dhiman, waa adiga rubac iyo tumin camal. kiilo ma dhamma, nus kiilo wax yar dhiman aan dhihi lahaa, astaqfirullah. waa nus kiilo wax yar dhiman. okay, marka si aysan baastada isugu dhegdhegin, wax yar oo saliidda cad ayaan ku shubayaa, sunflower oil ah. iskuma dhegdhegaysa markaas. inta ay noo sii karayso waxaan sii diyaarsanaynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo ansalaatadii aan ku cuni lahayn. rajaynayaa maanta casho deliziosa inaan ka soo saaro. deliziosa aad u macaan, aad u kalaro badan, hadduu ilaahay raalli ka noqdo. kaamirada ayaan noo soo dhawaynayaa, xagga waan ka soo carareynaa. marka hadda waxaan diyaarsanaynaa saladkeennii. salad badan uma baahnin inaan jarjarno, sababtoo ah waxyaabo kale ayaan rabnaa inaan ku darno.
baastadana alladenti markay tahay ayaan dejinayaa ilaa uu raali ka noqdo amba ay tahay meel sagoobto saladkaan dhaqanaynaa raali ka noqda allora intuu saladka biyaha nooga sii dhammaanayo tomaatkan yaryar ayaan sii jarjarayaa insha allah mar alla marka baastada markaad oolyo yar aad ku dartid isaga markaa dhegdhegayso hal mar unbaad walaaqaysaa mar dambe kuma noqonaysid marka dambe aad ku noqonayso waa adigoo dejinaayo un وإلى سأتينا من ملينا خيارته kalon ku jarjaraneynaa ilaa hadduu raali ka noqdo cheese saladkan waanaan feeta yaryar aan u jarjaray meeshaan ku miira waxa ayaan diyaarsanayaa marka waa inaan miira ilaa hadduu raali ka noqdo waan isku qasayaa kadibna
ansalaatadeeni waa noo diyaar. waxaan sugnaaba waa baastadii oon mirno. akhyaarta aad ayaad ugu mahadsantihiin dulqaadka aad ii yeelateen. aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad i siiseen. marka hadda axsaabey waxaan sii diyaarsanaynaa. horta waa inaan ogaadaa baastada inay diyaar tahay. akhyaarta baastadeeni waa noo diyaar. hadda waxaan ku qaseynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo suugada yareed aan sameynay. aad la socoteen habkaan u sameeyey kow ilaa dhammaad. marka hadda baastadii ayaan rabaa inaan ku daro. ilaah hadduu raalli ka noqdo waad la socotiin. waa wax aad iyo aad u macaan badan maasha allah. waa u jeediin akhyaarta. marka waxaan bilaabeynaa inaan gurno. haddaad rabtid markaad guratid barmasaan ayaad gees ka saaran kartaa. haddaadan rabinna waad iska dhaafi kartaa. akhyaarta waa u jeediin quruxdeeda waana caafimaad. waxaan aan diyaariyey. halkan waxaan ku diyaarsanaynaa marka ansalaatadeennii ayaan baaquligaas kale ku diyaarinayaa. ilaah hadduu raalli ka noqdo waad la socotiinaan u maleynayaa. ansalaatada waxaan ku cunaynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo balsamig. aniga aadaan u jeclahay balsamikada inaan ku darsado. wax yar un baan ku daraayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. akhyaarta haddaad rabtid barmasaanaad ku shubanaysaa. haddaadan rabinna haddee waad iska dhaafaysaa. ku soo dhowaada qaraaba iyo axsaaba channelkeenna Kawawa Food Channel. wax yaroo decoration waxaan basilikadaas ayaan kor ka saareynaa freshka ah. wow. ku soo dhowaada channelkayga Kawawa Food Channel. cuntadii aan diyaariyey waa taasaa. sidaas ayay ku soo baxday. haddana waxaan rajaynayaa in aan dhadhamino. soo dhowaada adduunka meel kastoo aad ka kala joogtiin. ilaahayow ciddaan haysanna sii. intii haysatana u barakee. mar labaad aan ku celiyo ilaahow intaan haysanna sii. inta haysatana u barakee. soo dhowaada. bon appetito. bon appetito. bismillaah. innaba caadi ma aha maasha allah. axsaabta waa inta aad iyo aad u macaan maasha allah. broveya please. aad ayaad uga heli doontiin. waa cunto caafimaad leh oo aad u macaan. tan waa diet. saan waa dadka dietka sameynaya way cuni karaan. haddana waxaa idin tusayaa qofka raba inuu weyd yar ku darsoomo sida gabadhayda hadda aan ugu diyaariyey. ila arka. gabadhayda suugadeedii waa kanaa. sidaan idiin sheegay biska fluuda kareemka caanaha ahaa ayaan ugu sameeyey. waad u jeediin suugadeeda dhan waa kareem. wax yaroo baasta ayaan ugu ridayaa iyadana.
oo intay cuni kartaa. qofkii raba inuu isxayiliyo ama weyd ku darsoomana sidaan ayuu u samaysanayaa. hal mar ayaan wada kariyey, qaybteeda waa ooga saaray. waa ujeediin caanihii faadka ahaa ee creamka ahaa ayaan ugu sameeyey iyada. waa la socotiin, sidaas ayaa ilmihiina qofkii caataana aad ugu samayn kartiin. qofkii hadda weyd iska ridaayana sidaan hadda aan u diyaariyey ayaad ugu diyaarinaysaa. soo dhawaada axsaabta iyo qaraababa adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan. ku soo dhawaada channelkayga Kawawa Food Channel. haddaad horey noola joogtayna Kawawa Nile Art, comment, like iyo share please. haddaad nagu cusub tahayna qaybta cuntada oo ah Kawawa Food Channel, waxaan ka rajaynayaa like, comment, share and subscribe. Thank you, bye.